ملدني عشقا يقول لبك علي نولا ما يهدى ملدني عشقا يقول لبك علي نولا ما يهدى سولا بويدي كستو بكانيو سو مرحنون بدن وبدك اوقدان كستو بكانيو سو مرحنون بدن وبدك aniga harta markii ugu horeysay aniga fankeyga aniga waxaan ahaa ilmaha ubaxa ayaan ahaa ubax degmada Yaaqshiid waxaan ahaa ilmihii Maxamed Siyaad anigoo yareysa taariikhdeeda anigoo yareysa ubaxa ayaa waxaan igeeyay anigoo ubaxa Guuleed Hotel anagoo ka shaqeynayno oo Abdullaahi Surqiyare waxay ugu soo baxday fanaaniinta kooxda Horseed ayay igu baxday macallimiintayda ahaayeen macallimiintayda Abuukar Cadaawe iyo Abuukar Sankoos iyo diirisha soo ahaa macallimiintayda ayaa Guuleed Hotel markii la igeeyay anigoo ubaxa macallinkayga Abuukar Sankoos ay wadeen Abuukar Cadaawe iyo waxaa la igeeyay kooxda Horseed magacaan ah Surqa Abdullaahi Barrow Surqiyare waxay igu soo baxday kooxda Horseed ay igu soo baxday markaas Surqiyare ilaa fanaaniinta markaas anna waa u yaraa Surqa Abdullaahi meesha igu soo baxday fankeyga meeshan ka soo bilaabay oo ah fanka waxa iiga sii horeysay markii ka sii yaraa kooxda danan ayadana Cabdi Bashiir Indhabuur iiga sii yaraa Cabdi Bashiir Indhabuur oo heesaha wadaniga asagana sameeyo Cabdi Bashiir Indhabuur asagana oo dhintay Ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo waxa joogan Ilka Case iyo maamadeeda ayadana ambiyo gacmaha aniga saasa la iga kala heen jiray fankeyga daarsorada ugu dambeeyo aan qaali jiray fankeyga waa ka sheekeyna hadaan dhoomanaha ma ku soo koobi karo oo inta anigoo yareyso cunug yar ah fanaaniin waaweyn aan la soo shaqeeyay oo anoo cunug yar gacanta la iga soo qabtay ma soo koobi karo laakiin taariikhdayda waxaan ahaa aniga ilmihii waxaan ahaa danan waa la soo shaqeeyay Cabdi Bashiir Indhabuur iyo gacanta la iga qabto baasorada ugu dambeeyay Surqa Abdullaahi Surqiyare waxay igu soo baxday kooxdan Horseed ee igu soo baxday militariga oo markaas oo ka ahaa shareeca markaas haystay shareeca la bedelay doolaal la keenay shareeca la keenay heesti marka igu horeysay meesha markaas aan ka qaaday waxay ahayd hees banaadiri ah Surqiyare markaas banaadiri ahayd Maxamed Shariif Ilaahay oo naxariistay oo dhintay hadda ayaan dhexdaas inta Maxamed Shariif Sharfaan oo tabnablo hadan kugu tilmaamay toosanay لا توصني توجتاعي في ريح توجتاعي في ريح طلعت إلى قاعدة الموني تاجناش تعبكي توصي تفتواتني تمام كنورا تام كيا تعبكي استصاصي نحي اهد بنادري محمد شريف marka hadda banaadirga hadda waxaan u batay heesaha oo Soomaaliga kadib heestii karwaati heestii ani Axmed Nuur Jango oo markii Axmed Nuur Jango heestan aan wada qaadno noolaan ma yaada soo laaban weydo waxa qaadi jirtay original lahayd Siraad Cabdulle Ugaas fanaan deegoyn Siraad Cabdulle Ugaas iska lahayd Siraad Cabdulle Ugaas markaas qaadi jirtay markii beeraha iyo meelaha dawladda iyo markii noo waco heestana maladii cusqa يقول لك عليه نولان ما يهدى سولا بويدي نولان ما يهدى سولا بويدي مركز وحي قاديسي الهيد أورجينال سيراد عبد الله أوغاس أيضنا لا بنحريستي مرويني متى aniga waxaan markaas cunug yar oo Surqiyare yaalina laakiin aniga Sankoos heesaa koobiga iyo anagoo yar asaas inta libisan saas u ciyaari jirnay in taariikhdaydu waa iska badan tahay taariikhdaydu waa la galaaday oo marba meel laga soo qaato intaas waa marqaati ma doonto fanaaniinta qaranka oo dhan marka heestan aan noolaan maayo haddaad soo laaban weydo ee Djibouti aan ku qaadana waxaan ku helay nasiibkayga markoo burburka dhacay kadib
aniga fankeyga intii hore waxaan ubaxa waxaan la soo shaqeeyay anigoo cunug ubax ah anigoo cunug yar ah intaas aan la soo maray laakiin markaan xoogaa soo hana qaaday ee aan isleeyahay qof weyn oo wax garatay yaa tahay camal markaan isdhihi karo waa marka Axmed Nuur Jango markaan la qaaday noolaan maayo haddaad soo laaban weydo heestaas waxaan ku qaadnay Djibouti fanaaniinta bixaysan aniga ugu yaraa inta noolaan maayo haddaad soo laaban weydo heestan markaan qaadayna waaye Axmed Nuur Jango waqtiga aan dhashay waxaan dhashay 1975 aan dhashay fanka aniga waaba ku sheegay ma fankayga waxaan ku dhahay taariikh ma beerayba oo la soo koobi karo maxaa dhahay ilmaha Maxamed Siyaadan ahaa marna anigoo ubax aadana la shaqeynay ilmo yar anoo Cabdi Bashiir buura gacantayga hayay waa marqaati madoonto marna kooxda heegan iyay ahaayeen ma fahamtay laakiin fankayga rasmiga ilaayo kun ay adiga waxay ahayd marka aan hadda aadayna wuxuu 1995 dhinac heesaa wadanigan u badnaa jacaylka saas kuma ahayn ilaa waxaan ahaa aniga fanaaniinta qaranka fanaanad qaran aan ahaa wasaaradda iyo fanaanad qaran ayaan ahay waxaan u badnayn heesaha oo dawladda u badnay sida dawladni ma jir dawladni ma joog daacadi ma hungowde daacadi ma hungowde waxaan badnaa anaga dhinac oo dawladda fanaaniinta qarankan ahayn marka heesaha jacaylka iyo heesaha oo waxaan xooga saarnay annaga aan fanaaniinta qaranka danahay heesaha dawladda